السلام عليكم صاحبي ما تورك idinku ma dheeraanayo muuqaalkan kaliya waxaan u gaar yeelnay musalka daaha mase 17 jir waxaan ku fiirin doonaa xilliga uu dhamaan karo miyuu soo dhow yahay mise waa dheer yahay waxaan kaloo ku fiirinaynaa sheekada sida u socoto ma noqon doontaa mid si gabagabada lagu dhameeyo mise waxay noqon doontaa mid dhamaadkeeda uu noqon doono mid aad u xiiso badan sidoo kalena waxaan xoogo ereegta taabanayna mise wax yar kala soo bixinaa xalqadii ugu dambeeyay qaybta saddexaad iyo waxyaabaha cusub ee ka dhici doona qaybta afraad ayaan isku dardareynaa kuna soo dhawaada mar kale janaalkan waa meesha aynu ku falanqeyno dhammaan taxanayaasha Turkiga insha Allah gurigeena waxaan rajeynayaa taxanag oo Korean inaan ka soo hadli doono kaas oo aad u xiiso badan si wana soo baxay suntugana wili la sugayo ilaa haddana waqti toos ah aan loo sameynin marka kaas ayaan asigana diiradda saari doonaa laakiin muuqaalkaas inuu noqdo iyo kuwa ku sii dambe inuu noqdo taas ma sheegi karin insha Allah taas aan u deeyno qadarka laakiin insha Allah muuqaal noocaas waa idin soo sameyn doonaa intii maaragtay jecel ee taxanayaasha indha yarta ayadana Koreanka masa kuwa Shiinayskana dhanka komitiga aan idinka arko haddii aan arko in la doonayo taxanaha ku yahay in la ogaado masa taxana kala dalbanaysaan insha Allah xogtiisa waan idin soo sii doonaa marka aanu gudagalno taxanahan horta aan ku bilaawno taxanayaasha samarka masa xagaaga soo baxo inta badan waxay noqdaan taxanooyin gaaban oo aan dheereen waqtigooda maxaa yeelay kan ugu badan waxa laga yaabaa inuu noqdo 20 xalqo kaliya waxa loogu talagalay in ay bilaawato bisha May ayna ku ekaato ahay bisha September marka inta bilaa xagaaga afarta bil xagaaga baa la suudaya taxanayaasha hadda waxaan u fadhiisanaynaa masa aan isku diyaarinaynaa inaan taxanaan aad u falanqeyno adigana haddii shaaxaga agtaada uu ka dhow yahay iska soo qaado muuqaalkan si jabdagana ku dhageyso marka midaan hadda isla fahanay qaybta saddexaad waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen in Shabnam ay gabadheeda Leila ay balan la gashay oo ay cafi doonto aras magaaladan laga kaxay doonin balse asaga ay samar dambe la kulmi doonin sidoo kale Kitioman la sidana waxa daba dhigtay Faras oo haddana waxa uu ka hor raadinayaa walaalkiisa mana ogeyn asiga walaalkiisa yahay asiga ayuu raadinayaa waana soo helayaa waxyaabaha xog oo ku saabsan ayuuna helayaa waana ka helayaa asiga waana krikatanaya midda ilaa ay doonto waan aragnay waxa ka dhacay doonto oo qarxiisa sidoo kale ninka mar walba soo waca yoo yahay oo ay mar walba aras la hadla oo dhaha in waqti walaalkaaga aad heleed lama joogo xataa xalqada dhacdo waxa ku dhaha adiga bas difaaci la sida walaalkaaga difaaci kaasna waxay la tahay inuu yahay midka ma aragtay la jooga reerkaaga kan la jooga oo u shaqeeya oo isla tayamka naftirkiisa oo u diray in uu raadiyo oo awooda asiga midda xalqada saddexaad hala ugu muhiimsan waa inta midda afraad waxaan u soo gudagaleynaa in dhamaadka xalqada oo soo xasuuso doono Tiam markii ay doonto ay qaraxdo yaraantiisa qarax noocaas oo kale inuu soo xasuusanayo taaya waxa ka dhigaysaa in qaybtan afraad ay noqon doonto sheekada meesha ugu weyn isku furfurayso hooyada Leila ama wiilkan ay soo korsatay oo Tiam aysan asiga ka warqabin waxa uu sheegaysaa in wax walba oo dhacay wiilka laga kaxisan doonin naf walban ay u gooy doonto yacni ay burburi doonto wada walba oo ku heli lahay aras walaalkiisa يعني سوورك ودقمة وففها السنة صداع هذا كايا يشمنا واحد اسكو ديارنا إن أي كورتغان أراس وضرب أو قاضي كرسي ولك سهلنا إن أي كسوحنا ستوك الجزء كسكو حكاركنا إن تيوم ودينا يهودي سيان يعني وحوجانا إن أيضا أيسن دارين ميا مسا قاب كل هذا الكوكو إماضي كل صد وقت واحد كده انتهى إن oo dhahayata yaan ay aniga masayatay hooyadeeda amal sidoo kale waxaan aragnaa in hadda aras ay tiisaysato maxay yeelay aras wuxuu leeyahay asagna sidoo kale wada kale oo ku heli karo walaalkiisa saxafigii 12 sano ka hor waraaqadaha journalka qori ayuu helayaa balse waxa kaga talaahay xabsi ayaa la gelinayaa sabab la xiriira dhibaatooyinka dhacay iyo waxyaabo iyo eedan ee qoyska kaya ee dusha ka saareen Leila abeed ayaa wax u didi doona in aras inta la kunta iska dayaxta in agarkiisa ka dhawaa karin waxaan u sheegayaa jacaylka wiilka faqiirka iyo gabadha taajirada marna inuu sarroobi doonin marka Leila ayadana waxay dhaxda ugu jirtaaba aabaheeda iyo jacaylkeeda midka ay dooran doontaa xoga qaar oo sheegay oo yani socdo waxay sheegayaan in hakankaba uu soo yahay in familka aras ay baabaan mise ay burburaan midna uusan gaarin ilaa si walaalkiisa mahane xitaa wuxuu mar xalqada labaad inaa ku aragtayna jeclaa inuu dhahayo wali ma nool yahay walaalkiisa ka weynay mideeda kale macquulgal ma noqon doonta aras iyo Leila inay midoobaan maxay yeelay mar haddii ogaado aras qoyskiisa wax baabiyay inuu yahay reerka ayaa inay meeshaas waxaa noqon doontaa in argoosi ay u jeesan doonaan asi walaalkiisa Tiam lacala diiba isxilaanbo marka ma noqon doontaa Leila in ay aras u soo go'do mas in ay familkeeda garka dagaalanto mas ay ka soo horjeesto aras si toos waxa markaasi u baabi'i doona jacaylkooda mas qoyskeeda arrinta dhinacaas waa ka cakranta adiga idin diinahay sayelisin macnaha maalabada isku bixinaysiin waxay leedahay ayay ka soo horjeesanaysaa mas waxa leedahay asiga ka soo horjeesan doontaa araaska waxay garab istaagi doontaa familkeeda mas jacaylkooda waxa ku dhamaan doonaa meexun oo labadoodba way kala tagi doonaan
taxanaan wuxuu ku dhamaan doonaa ayagoo labadood kala danaysteen. Xogta kale ugu muhiimsan inta badan taxanayaasha Turkiga xukumaysa waa ratingka. taxanaha ratingkiisa aad buu u sareeyaa runtii haddii la fiirinayo dhanka taxanooyinka kale. xitaa hadda wuxuu ku jiraa kaalinta koowaad kuwii soo baxaysa marka mise xagaaga. taa waxay ka dhigantaa in taxanahan uu sii socon doono, laakiin maadaama uu yahay samarka inta badan taxanooyinka sheekadoodu ay kooban tahay. kulli kanaal D ilaa hadda war rasmi ah ma soo sheegin. waxaa maqlay kuwa sheegay in 6 xalqo ku dhamaan doona siga dhanbo, laakiin taas inay runtaa in kale wax u diidi doona marka xalqada 6 aan gaarno. taasna waxaan naga xigay kaliya isbuucii kaliya. ratingka qaybta koowaad waxay ahayd 3.29 balse mid labaad ay ka sare marto oo waxay noqotay 5.74. sidoo kale qaybta saddexaadna way ka sii marto waxay noqotay 7.70. marka macquul ma noqonayso in TV oo iska burburiyo mise iska joojiyo taxane ilaa heerkan sheekadiisa ay aad uga sareyso. xalqa kasta hadday si ratingkiisa u sii sareyso mise aysan hoos u dhicin oo mar walba ay kor u kacdo ilaa laga gaarayo bisha September ama October way sii socon doonaa. mar haddii ratingkiisa oo dhulka u dhici waayna waxaa si toos loogu dari doonaa waqtiyadaas taxanaha ka soo bixi doona oo season 2 ayaa loo sii yeeli doonaa mise toos wax ugu biri doonaa taxanooyinka soo baxaya waqtigaasi oo xagaaga kadib taxanooyinka soo baxa ayuu toos uga mid noqon doonaa. haddii aan dhana xitaa misalka waxa uu gaari doonaa September dhamaadkeeda aan isla fiirino inta xalqa uu noqon doono. 31 May xalqada koowaad soo baxday midaas meel noo dhig. hadda bilaha kale aan gudubno bisha June 4 qeybada soo baxayso ilaa wuxuu ku egtahay ilaa 4 qeyb soo baxayso bisha gudaheeda waa 2 ilaa 5 intaas qeyb soo baxaysa bisha June gudaheeda. bisha July ayadana sidoo kale 4 qeyb soo baxayso waxay ka bilaabanaysaa 6 ilaa 9 ay gaaraysaa ayadana oo bil walba 4 xalqa ay soo baxayso. bisha August ayadana sidoo kale 4 xalqa soo baxayso ilaa wuxuu gaari doonaa marka 14. bisha ugu dambaysa marka September ayadana 4 xalqa soo bixi doonto ilaa 18 ayuu gaari doonaa. haddii 18 finalka oo noqdana taxanaha wuxuu ku dhamaan doonaa 27 bisha September ayuu dhamaan doonaa. marka kulli haddii taxanaha uu sii soconaa ilaa bishaas ilaa uu gaarayo meesha daa calaameene wuxuu noqon doonaa 18 xalqo. haddii sida la sheegay ay run noqotana sida dhan 6 xalqo oo noqdana waa arkanaa maadaama sheekada si xool u socoto ratingkana uu ka daba socdo oo kama daba harooy. marka waan sugeynaa oo arkanaa wixii dhici doono. misalkan xogeeyaan kaga soo aruurinay intaan ayuu ku eg tahay. haddii aad kala baxdeen waxyaabo muhiim ah iyo haddii aad isleedihiin maxaa dhici doona waa inuu wadaagi doontiin dhankaas committee-ga. xog walba soo baxdana waa xog walba faa'iido leh idin kama qarin doono isla markiina waa idin wadaagi doonaa. taxanahani waa mid aad ugu xiiso badan kan xiliyadan lagu jiro hadda kan soo baxay waa kan ugu koowaad ee kaalinta koowaad ugu jiro. laakiin ratingkiisa marka loo fiiriyo hadda midkan Altintash mid kale dhahay oo tolga ay ku jiraan asxaabtii Kardashian iyo kuwa kale la isku keenay iyo kii ku jira dhaxal sugay ratingkiisa midka xalqada koowaad ba 4 dhibic iyo waxay ku bilaabatay wax la jiro. taas waxay muujinaysaa in xitaa midkan uu ka qatarsanaa doono kaas sida ay la tahay asagana muuqaal gooni ay ka soo sameyn doonaa. marka laakiin hadda sida muuqata taxanahan qaybta koowaad ee soo baxday midkan daha 17 iyo qaybta koowaad ee soo baxday midkaas ATV iska leedahay. hadda labada qaybta koowaad la isbar dhigo labadooda waxaa sareeyay kan ATV iska leedahay oo Altintash Istanbul magaciisa Istanbul iska dhahno soo wadaagyahay. marka haddii kan la buuso oo arkana oo hadda lagu cariirsan doono laakiin isku waqti soo baxayn kan axad soo baxa kana waqti kale soo baxa saarjeenay ka ilaa hadda macluumaadkiisa faraama wala galeen. marka waxaad leeyahay sidaas nabadgelyo asxaabi inta ka kulmeen muuqaalkiisa xiga. laakiin laba aqbar aan kaga soo gabagabeynaya wuxuu ahay ninkii lagu magacaabay Salaaxudiin ku jilay taxanaha Salaaxudiin magaciisa oo ahay Ugus oo ka baxay taxanihii oo u sameeyay rabay ATV oo ku soo biiray wuxuu ahay Babaqdir ninkii lagu magacaabay. hadda doorkiisa waxa la wareegay Burak Ustafid kaas ayaana jili doona waxaana la soo xushay dhowr atrisho yaana jili doona intaas oo atrisho adtay kula tahay mid ku haboon ee ku soo baxaysa atoorahan. sidoo kale ninkii Amir Bey ahay asagana taxanihii jecelkii badamadu asagana uu saga baxay asiga atrishadu inay ka bixinaa u maleynaa. marka yaa jili doona taxanaas asana yaa hogaami ka noqon doona asigana waa arkeena. marka labadan jila hore taxan iskala sameeyeen si isku mid ah hadda taxanooyinka ugu baxeen mid walbana waqtiga la duubi rabay kii Salaaxudiin ka baxo kala tusaale waa la duubi rabay 20 bishan dowladda la bilaabay laakiin 25 bishan ay dib u noqotay. marka waa arkana wixii macluumaad ka soo baxay igana waxaan idin leeyahay markaas caawistaasi nabadgelyo inta ka kulmaan muuqaalkiisa xigana muuqaalka aad nooga qurxiya maalmaha waa aragnaa channelka wax badan soo dhigin laakiin adiga aan ugu daysan nooga qurxiyo waxa muuqaalkii hadda daawato like saar hadda daawan xataa si share garay intaas waa nagu caawi kartaa.